yuhuudi madaxa nooma saarre halka ilaahay dhigay bay yaallaan gaallo madaxay nooma saarre halka ilaahay u dhigay buu yaallaa maalmahan dambe 26 Disembar wixii ka dambeeyay dad baa waxyaabo ilaahay gaf ku ah oo diinta gaf ku ah oo dalkan sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisaba meel ka dhac ku ah warbaahinta kaga hadlaaya waxaan maqlay oo darrada ma tii ka horeysay laga sii daayay warbaahinta ragooda yaalo hadlaya kuwa kale meel kale ka hadlayo madax dhaqameedina waa jireen marahooda kuwa sidaas oo kale u hadlay waa jireen munkarka culimada hore uga hadleen kan bisha Ramadaan dhexdeeda soo cusboonaaday baan kelmad yar ka oranaya ereyada ay laayeen waxa kamida yuhuudu waa walaalahayo yuhuudanu ka jecel lahay dadka muslimiinta ah yuhuudu madaxayeen loo saarayeen waxaanay ka hadlayeen ictiraafka in la ilaaliyo oo qofka ka hor yimaada la xidho ictiraafna waa ilaalinayaan ilaahayna waa ku gafayaan ilaahay diintiisii bay meel ka dhac ku sameynayaan walaalaheen waa muuminiinta ilaahay bari innamal mu'minuuna ikhwa yuhuudi walaala inooma aha bal ilaahay wuxuu inoo sheegay in cadow inoo yihiin لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا waxaad ogaan doontaad heli doontaa muuminiinta dadka cadaawada u badan u haya inay yihiin yuhuudda iyo mushrikiinta nasaarada iyo kiristaanka ayaaba ka sokeeya mushrikiinta sanamada caabuda sida kuwa buudiiska ah ee China iyo Japan iyo meelo kale badan oo adduunyada kamida ku nool iyo yuhuuddu kuwa u cadaawad daran weeyaan buu Ilaahay ilaahayna wuxuu yiri cadawgiina ha ka yeelanina awliya xigto iyo kuwa aad leedin waanu jecelahay waad soo dhawaysanaysaa ya ayuha alladina aamanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya hada kalam rabbil alamin mu'miniinta cadawgeyga iyo cadawgiina ha ka dhiganina xigto kuwa qulubtaad ka jeceshay mucaamalaad adduunyada dhex mari kartaa gaal yuhuudi ama nasraani ama mushrik salam caabuda nabi maxamed bi alayhi salatu wasalaam dhex mari jirta waxbaad kala iibsan kartaan waxbaad kala amaahan kartaan heshiis baad gali kartaan laakiin heshiiska waa inuu diinta waafaqo oo shardi iyo heshiis kastoo diinta khilaafsan waa baatil rasuulku alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri ayuma shart laysa fi kitab illahi fa huwa baatil heshiis kasta oo ilaahay xukunkiisa khilaafsan oo waxba kama jiraan kaasa lagu miisaamaya heshiisada dadku ay galayaan noocay doonayaan baa noqdaane wixii ilaahay xukunkiisa ka hor yimaada waa waxba kama jiraan waa hadalkii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam muslimiinta iyo gaaladu heshiisada ay galayaan waxa loo eegayaa al-maslaha wal mafsada maxaa dadka muslimiinta diintooda dalkooda naftooda akhlaaqdooda mustaqbalkooda maxaa maslaxa ugu jira maxaa mafsada ku jira labada teeba badan taas ayaa loo eegaya laakiin naga waxaad moodaa darjiir fara badan inuu jiro darjiir fara badan baa jira dadka xataa iyagoon diinta aqoon u lahayn ayaa masaa'il adduunyada kuma kaaftoobayaan oo kuma gaabsanayaan xataa inay yidhaahdaan mucaamalo adduunya ciddana dhex maraysa kuma gaabsanayaan arrimo diintii taabanayay faraha la gelayaan aayaad cadcadoo ilaahay kitaabkiisa ku yaala ayay khilaafayaan markaasay dambaabayaan markaasay dawladdii magaca iyo sumcadda ka dilayaan markaasay dadkii sharaf dilayaan markaasaa dad kaloo iyaguna khaldani dalkaa dhan iyo dadkiisaba ay ku caayaan bale waxaas waxay ku hadlayaan reebel saasay aaminsan yihiin dadka dalkaa degani waxaasay aaminsan yihin bay odhanayaan kuwaasina waa khaldayin ilahay baa walaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna qof dembigiisa ma xambaari karo dal iyo dad dhan qof ama dad khaldamay laguma caayi karo taas iyadaaba dembi weyna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inna min afra alfira an yaqdaxa ashaaciru fi lqabiilati biasriha waxaa ka mida been abuurka iyo dembiyada waaweyn ninka gabyaya qabiilo dhan oo nooc walba leh inuu gabayga ku caayo dal dhan oo dad dhami degan yihiin qofka hadal uu qof yidhi
ugu abtirinaya ku xukumsiinaya ku caaya isaguna u khalday laakiin arrintaa waxa inoo soo jiidaya dadka waxa ku hadlaya nooca ku hadlaya kuwa odhanaya qofka yuhuud soo hadal qaadee wax ka sheega halkaa laga toogto ayna hada fi kitaab illah wa fi sunnati rasuuli illah kitaabka qur-aanka miyaynu ka masaxnaa aayaadkan yuhuudda ku sheegaya maqduubun calayhim nasaarana daaliina ku sheegaya cadowga muslimiinta ku sheegaya war kala danaysiga adduunyo iyo in quluubtu isu furanto oo la isjeclaado raalli la iska noqdo oo la is ammaano oo wixii ilaahay uu ku sheegay xataa la yidhaahdo yaan lagu sheegin war labadaa dadow ha la kala saaro hadal iyo ficil iyo go-aamo ilaahay diintiisa khilaafsanna weligan horumar ku gaari mayno bal dubaha ilaahay baa inugu dhacayo halkaynu joognayna hoos uga noqonayna war ilaahay diintiisa aynu ilaalino intaynu dal ilaalino in ka weyn intaynu dowladnimo ilaalino in ka weyn inta ictiraaf la ilaalinayo in ka weyn ilaahay diintiisa aynu ilaalino waayo wax walba hagaagiisu iyada ayuu ku xidhay haddaad ka cabanaysa xaalad adag oo leedahay xaaladda inay ka baxaan doonaya ilaahay caasiya qowl iyo ficiltoona ku caasiya waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib miyaanaad maqal qofka ilaahay ka baqa xaalad kastoo adag ilaahay meel uga baxo u yeelaya ilaahay baa arsaaqada uga keenaya noocay tahayba meel aanu ka filanayn mafhuumka aayaddu waa maxay qofka ilaahay caasiya xuquuqdiisa dayaca ilaahay xaaladda uu ku adkaynaya waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofka ilaahay diintiisa ka jeesta ku camal fali waaye ay xidhi weydo nolol adag inuu galayo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inoogu sheegay wajucila adullu wasagaaru calaa man khaalafa amri buu nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dulliga iyo hooseynta dusha waxaa loo saaray cidda amarkayga khilaaftay war ciddaad wax ka iibsanaysa ka iibso ciddaad la mucaamaloonayso si shareecada waafaqsan ula mucaamalood laakiin ilaahay diintiisa ha ku ciyaari ilaahay aayaadkiisa cadcad ha khilaafin ilaahay subxaana wa tacaala ha caasiin arrintaa halaag bay sabab u noqonaysaa halaag bay sabab u noqonaysaa horumar daaya ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa arrinta noocaas sabab u noqonaysa ittaqu llah ya cibaad allah yuhuudi madaxa nooma saarre halka ilaahay dhigay bay yaallaan gaallo madaxay nooma saarre halka ilaahay u dhigay buu yaallaa mana jeclin waa la mucaamaloon karnaa xuquuqda ilaahay intuu siiyeyna waynu siinaynaa oo diinteennu say tiri ula dhaqma baynu ula dhaqmaynaa laakiin ma odhan waanu jecelnay muslim iyo gaalla si kasta oo muslim uu kuu dulmiyo oo kuu dhibo kuuma bannaano inaad tiraa muslimkaa iyo gaalkan jecelay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun ilaahay baan simin subxaana wa tacaala si kastoo muslimku u khaldan yahay gaal la mid maaha gaal baa ka wanaagsan iyo gaal baan ka jecelayn lama odhan karo gaal akhlaaq dulmigii iyo akhlaaq xumadii u darayd buu ku sifaysay oo ah kufr iyo shirki muslimna wuxuu ku sifaysan yahay akhlaaq wanaagga qodobkii u sarreeyey oo ah iimaan iyo tawxiid oo ay dhici karto sida ilaahay kitaabkiisa ku sheegay khaladaadka kale ee ka dhaca haddaanu xataa ka toobadkeenin qiyaamaha marka la tago ilaahay inuu ugu dhaafo tawxiidka iyo iimaanka in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa war diinta ha la ilaaliyo qofka wax khaldan ku hadlayana waajib baa inaga saareen wanaagga ha la faro xumaantana ha laga reebo dalkeenna aynu ilaashanno nabadgelyadiisa aynu ilaalinno horumarkiisa aynu u midowno aynu ka shaqayno inagoo mar walba u marayno waddada ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo ogol yahay ee waddo khaldan aanu marahayn waana siduu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkeennu wuxuu yihi ina ruuxa alqudus nafatha fii rawci annahu laa tamuutu nafsun xatى تstakmila risqaha وأjalaha faاtaquu اllaha وأjmiluu fi الطalb malaku jibriil wuxuu waxyi iigu keenay nafna inaanay dhimanahayn nafuhuna waa la mid dal dhan degan ilaa ay dhammaystaan ajashooda cumrigii ilahay ugu talagalay adduunyada inay joogaan iyo risqigooda noocuu yahay cilmigaa risqiya caafimaadkaa risqiya xoolahaa risqiya horumarka dalkaa risqiya arrinku mar hadduu sidaa yahay aad tahay qof rumaysan alqada walqadar waajibkaagu waa maxay faataquu llaha waajmiluu fi alab war ilaahay ka baqa oo raadinta risqiga noocuu yahayba waddo fiican u mara alab alxalaali wa tarka alxaraam buuhi nabigu alayh salatu salaam
xalaasha raadsada wadadeeda mara xaaraantana iska ilaaliya qofka munkar ku hadlaya iyo wax xun dan inoomaha diinteenna dalkeenna dowladnimadeenna horumarkeenna bal qofkaasaa dhab ahaan ah qofka dib inoo celinaya ee masaalixdii iyo danaheenna diineed iyo kuwa adduunya intaba la dagaalamaya ee dulli iyo hoosayn abaaro dib u dhac faqri sabab inoogu noqonaya iyo inaan taageerin oo garab istaag aynaan u muujinin ilaahay ka baqa aynu dhaano maskaxdaada ka saar wax ilaahay ka cadhaysiinaya inuu dalkaaga wuxu taraya ama dadkaaga wuxu taraya ama adiga wuxuu ku taraya ka saar maskaxdaada taasi waxay dawo ka noqon qof ilaahay ka cadhaysiinaya inaad taageerto adoo leh dalkaan jecelahay ama horumarkiisa ayaan doonaya dhab ahaan dalka waxaa jecel qofka waxa wanaagsan dadka u sheegaya waxa xunna ka reebaya masaalixda iyo danaha guud iyo horumarkana ka shaqaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo